astagfirullah shaqalkaas inaad ilaaliso waa lagaa doonaya dad baa iska dhah astagfirullah astagfirullah waxa jira maaha ka kacwa astagfirullahi mar walba iyo goor walba iyo meel walba waa ku dhihi karnaa waxaan musqusha ka ahayn istigfaarta waxay tahay wax walba oo khayr ah furihii lagu furi lahaa waa istigfaarta fajirka salaada subax intuusan dhalanin fajirkaas intuusan dhalanin aadaanka dambe intaan la aadaamin ka hor waqti aad qaali u ah istigfaar qalbiga ka soo go'day laabta ka soo go'day ikhlaas uu ku jiro alla dartii loo yeelaya waa inaan badina markii la khatimo shirka la xiro our meeting has been closed markii la yiraahdo waa inaad tiraahdaa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk ducadaas waa muhiim astaghfirullah qadadku ku dadaal qalbigooda ay nadiifinaysa uqdud ma qaado xasnimo ma gasho qalbigooda nadiif waay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولا لي الإله بمهد إسكاله سبحانه وتعالى الله نسوك الميي جلسة النوسر تقلي الله سنكم هذينينا ما هذا إذا هيك كجدال وحن ما أنت كوضا داهي دونا إن شاء الله تعالى حديث كنا مشاكلنا إن غندو أنت كلمة دينا أهمية دا أي لا هاي أما مهمة دا أي لا هاي استغفرت كلمة أها عبادة استغفرت وشيء عبادة وعبادة أوين أيان ربا استغفرت وعبادة أوين إلهي سبحانه وتعالى أمد النبي محمد وكوك الله دايستي معنى هذا أنا وياهي إلهي بات كعد سنيسا إنو دنبيك كور دافو استغفرت waxay tahay wax walba oo khayr ah furihii lagu furi lahaa waa istigfaarta istigfaartu waxay sabab u tahay lirafci albalaa balaaya inay ka kor yeesho jirooyinka ku haya faqriga ku haya culeysyada ku haya imtixaanada ku haya waxyaalaha sabab u noqon kara in laga kor yeelo amaba laga qaada waa istigfaarta wajalbi ni'am نعمة برواغنا ويكوسو جيديسا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله حليه سبحانه وتعالى على لسان نبينا نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إساقو إنوغا ورمايا اللي نبي الله نوح يقون كيسي وحي دحمري مركي أي دباتي الرفاد أي لكل من يا وحان كويري بويري نبي الله نوح فقلت وحان كويري قولا ديدي استغفروا ربكم ربي جينا الدين بداف ويديستا محايا لإنه كان غفارا ربي قاس آياءه midka dembiga dhaafa had jeerba ama mar walbaba isaga dembiga dhaafa waa dembi dhaafid badane aad buu dembiga dadku u dhaafa Allah subhanahu wa ta'ala hadii ilaahay ma aragtay aad maartay ka codsataan dembigiina inuu idin dhaafo faa'iidooyinka laga helaya dembi dhaafka ama istighfaarta faa'iidada lagu helaya waxa kamida yursilis samaa alaykum midrara Allah samadu soo diraya iyadoo dararsan samada ayaa la idin soo diri iyadoo rooba badan leh ama idin roobaynaysa ama idin da'aysa samada ayaa dararaysa idin da'aysa dad iyo dunyaba ay ku naaxi doonaan inta kelime istighfaarta faa'iidooyinkeeda waxaa kamid ah sidoo Allah inoo sheegay wayumdidukum bi amwalin maalkiina la kordhina waxaan u ordayna soo intaas ma maalka in lagu kordhiyo soo ma rabtid istighfaarta daa'im wa baniin ilmaha in lagu badiyo soo ma rabtid istighfaarta daa'im آيات كلا إلهي وحي سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نبي الله هود قل ذي سيوحو كيري ويا قوم رير كيجيو تول كيجيو استغفروا ربكم
rabbigii idin abuuray dembi dhaaf weydiista thumma markii aad dembi dhaaf weydiisataan ka gadaal tuubuu ilayhi xaggiisa u laabta khaladaadkiina ka laabta ilaahay xaggiisa u laabta astakfirullaahi badiya haddaad yeeshaan soo ma aha yursil isamaa'a calaykum midaraara samadaa la dirayaa iyadoo da'aysa roobab fara badan leh wayazidkum ilaahay wuu idiin kordhinayaa quwatan xoog ilaa quwatikum xooggiinii hore yaa xoog kale la idinku sii daraya umaad waa ummad ayaga marka horeba ilahay un garanaya xaaladood man ashaddu mina quwa waa dadkii dhahay xooggiinii hore yaa xoog kale la insiina qofka hadduu maaragtay barwaaqo helo uu noolaado uu wax cuno inuu xoog bixinayo energy yeelanayo laba isma warsanayso marka alla wuxuu yidhi xooggiinii hore aad qabteen yaan xoog kale idinku daraynaa xuduuddiinaan xoojinaynaa walaa tatawallow mujrimiin idinkoo criminals ah ha jeedsaninaa la yidhi idinkoo dembiiliyaal ah ilaahay aanan garanaynin rasuul aadan garanaynin eedaysanayaal ah dembiiliyaal ah dhabarka ha jeedinina walaalayaal alistikfaaru sababun istikfaarta waxay sabab u tahay linuzuuli lmadar sida aayadda aan ka fahmnay roobka inuu da'o haddaan rabno istikfaarta waa inaan badinaa istikfaar qalbiga ka soo go'day laabta ka soo go'day ikhlaas uu ku jiro alla dartii loo yeelaya waa inaan badinaa wallahi istikfaarta haddii aan badinno roob waa noo da'aya alistikfaaru sababun waxay sabab u tahay liziyaadati risq arsaaqda in lagu waasiciyo arsaaq in lagu waasiciyo ma rabtaa barwaaqo inaad ku noolaato ma rabtaa adigana badi istikfaarta badi istikfaarta badi haddaad istikfaarta badisid ilahay arsaaqduu kuu waasicinayaa ilahay arsaaqduu kuu ziyaadinayaa ciriiri waad ka baxaysaa ma rabtaa inaad baraka heshid awlaadda ilaahay kuu barakeeya ma rabtaa ilzim اlistikfaar istikfaarta laazim astakfirullahi badi habeen iyo maalin badi mar walba ku dhawaaq carabkaada ku layli daa'iman carabkaada ha ahaado mid ka qoyan astakfirullah ma doonaysaa tafriiju lhumuumi waalkuruub kurbadaada inuu ilaahay feeda ma rabtaa walbahaarkaada iyo walwalkaada inuu ilaahay kaa qaado ma rabtaa astakfirullahi badi aayadda qur-aanka inoo sheegaysa maxaa yeelay haddii dhibaato la galo khalaas ilaah baa lagu cararaa soo maha fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin walaalayaal nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam nabiga markii la sheegay in lagu saliya ayaa la rabaa ama idaacad ka dhagayso ama meesha fadhi nabiga magaciisa haddaad maqashid sala allahu alayhi wasalam inaan ku dadaalno waa shay muhim ah marka nabiga wuxuu yidhi man lazima alistikfaara qofkii istakfirullahi daa'ima astakfirullahi qofkii daa'ima jacala allahu ilaahay wuxuu siinayaa wuxuu u yeelahayaa lahu qofka isaga ah min kulli hammin murug walba walbahaar walba walwal walba farajan farajuu siinaya irid uu ugu baxuu siinaya allah subxaanahu wa tacaala soo ma arkaysid istikfaarta lagu helaa ruuxii istikfaarta daa'ima laazima waxaa lagu wadaa daa'ima marna aan dhaafaynin astakfiru allah alcadiim wa atuubu ilayh astakfirullah 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 ku dadaala mar walba ku dadaala qalbiga iyo carabkana isla socdaana la rabaa laakiin carabkana astakfirullahi tusbaxa la wataa baasho chiniiska gacanta lagu wataa taq ayaa lagu haya maantooda waa la tataabana sheeko kalena waa la isaga jiraa taas looma baahno astakfirullahi qalbigaada iyo carabkaada waa inay isla socdaan ayaa la rabaa if not waxba lagaama yeelin dee maba adigaba kama shaqaynaysid waxaa la rabaa qalbi jooga ilaahay la hadlaaya qalbi ilaahay u baahan baa ilaahayna u dembi dhaafaya soo ma marka qofka istakfirullahi daa'ima allah subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa ama uu u bixinayaa ama uu u furahayaa makhraj dhib walboo ku imaada murug walboo ku imaada walbahaar walboo ku imaada ilahay irid uu ugu baxo irid uu u furayaa ilahay subxaanahu wa tacaala murugteena iyo walbahaarkeenna allah naga faydo in sha allahu tacaala waxaa kaloo wa min kulli dayqin makhrajan cidhiiri walba uu galana iridaa loo furaya cidhiiri maba galaya astakfirullah qofka daa'ima ka caada yeesha carabkiisa ku layliya qofka isaga ah biidni illaahi albaari cidhiiri ma galahayaba cidhiiri ma galahayo cidhiiri adduun iyo tu aakhira midna ma galahayo qofka isaga ah ilahay arrintiisa oodu ka qaadi socaa la dhihi wa razaqahu min xaysu laa yaxtasib xadiid rasuul sal alla alay wasalam ilahay wuxuu ka arsaaqayaa meel uusan waxba ka filanayn
arsaaqdaada meel aad waxba ka filanaynin iyo ilaahay kaa siinaya. wallahi alcadiim, jarrib maalin iyo adiga ku dadaal bal. yani annaga soomaali baan nahay, maanta haddii aan boqol ku akrina maanta astakfirullahi umaan daldalayaan dhehna. horta maanta astakfirullahi umaan daldalay lama rabo. astakfirullahi habeen iyo maalin daldal, maalmo wad, usbuuc wad, bil wad, wallahi alcadiim isbedel noloshaada waa arki. waa wax lasoo taabtay, tusoo itaabsii yaan u aragnay arrintaas ayada ah. marka haddaad rabtid khayr adduun iyo khayr aakhira ilaahay inuu ku siiyo, istakfurtaas waa inaad daa'imtaa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu yidhi, wallaahi baan ku dhaaranayaa buu yidhi. nabiga waa dhaartay, wallaahi waxaan ku dhaaranayaa allihii weynaayo iyo maartay macbuudka ahaa, innii aniga oo nabi maxamed ah, la astakfiru allaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa, wa atuubu ilayhi xaggiisaan u laabanayaa, filyowmi halkii maalin gudaheed, akthar wax ka badan min 70 mara 70 jeer. wa fii riwaayatin ayuha annaas istakfiruu rabbakum huma tuubuu ilayhi innii astakfiru fi lyowmi 100 mara. xadiid kalu ahaa. nabi wuxuu yidhi, ilaahay baan idinku dhaaranayaa buu yidhi dadow, aniga oo nabi maxamed ah, dembigayga hore iyo mid ka dambe ilaahay ii dhaafay, waxaan ilaahay maalintii gudaheed weydiistaa dembi dhaaf oon u tawba keenaa wax ka badan 70 jeer. riwaayad kalena 100 jeer ay leedahay. 100 jeeraan ilaahay dembi dhaaf aan weydiistaa buu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam. nabigeena fiiri bal ya nabigeena suura inaa fataxna markaad akhrisid, liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama ta'akhara wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraatan mustaqiiman. waa qof dembigiisa dhammaan la dhaafay waay, mid soo socday iyo mid hore iyo mid dambaba macsuumu ilaahay ka yeelay, ma dimbaababa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. iyadoy sidaa tahay uuna og yahay ilaahay inuu dembigiisa u dhaafay, yuu maalintii dhexdeeda 100 jeer maartay ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya. 70 jeer wax ka badan ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya uu leeyahay. ani iyo adiga walaalkay waxaa loo baahan yahay kumanaan ayaana laga rabaa. maxaa yeelay hindheheenna edeb ma laha, dhegaheenna edeb ma laha, carabkeenna edeb ma laha, gacmaheenna edeb ma laha. waa dabaalanaa, dembiga waa ku dhex jirnaa. marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaalno wax ka badan maaragtay 100 jeer inaan maaragtay ilaahay aan weydiisano dembi dhaaf, ilaahayna aan u tawba keena ayaa la rabaa. walaalayaal, tawba keenka iyo dembi dhaafka ma aha keli markaad xanuunsan tahay, ma aha keli markaad ciriiri geshid, ma aha keli waqtiga aad maaragtay dhibaato qabtid keli lama rabo. xilli walba adoo fiyow caafimaad qaba, adoo barwaaqaysanoo ladan, adoo caafimaad qaboo socda yaa lagaa doonahaya inaad badisid. taas waa qodob. qodobka labaad aan baranayno kayfiyat listikfaari, qaabkeen maaragtay ilaahay dembi dhaaf u weydiisanayna. qaabkee الاستغفار له صيغ كثيرة منها استغفر الله هذا صيغة قبتها. صيغة وحال لفظ لو ترجع جرتا words, it has some words, كلموين يا جرا نبينا ونوجد عليه الصلاة والسلام سيؤكل فذذهن إيو سيؤوين كلا شيئنا. أفضل صيغة مد أغفي عن أستغفر الله إذا نستمد أغفي عن إلهي أودن بداف لويديز مد أغفي عن والدعاء ويرديرتا سيد الاستغفار أيال هذا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. دعاء خطر. سيد الاستغفار أيال هذا تاسع خطرسن مد صيغ سهلة كو كلا فضت كفضت تنوى بديرتا هاي دad kani oo kale to yara damiinka ma qabanayaan waa yara dheer tahay mid gagaaban ayaa jirta. kow waxaan dhahaynaa astaghfirullah, astaghfirullah. shaqalkaas inaad ilaaliso waa lagaa doonaya. dad baa iska dhah astaghfirullah astaghfirullah, waxa jira maaha, ka kacwa fals. tee saxe astaghfirullah, faada in loo hoos dhawaal raba, فهذا وإن له صدقة. أستغفر الله. إلهي وحوري إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إلهي فيري وحوري واستغفره مركب في إن هذا الربا أستغفر الله أستغفر الله. هذا هذا إسكا قدو ما أعرف استغفر الله هذا فهذا قدو استغفر الله أترادد أحبك مجران. marka astaghfirullah waa hal siiqa tanaad badin karta astaghfirullah 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 kumanaan waa wadi karta. kalimada labaad iyadana gaaban oo iska fudud astaghfirullah alazim
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم هذه كرت تن سدحات أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه إلهي باند مداف ويدي سنة أون أتوب كينا يا لوضع تن قدام بيسو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي إله إيداف دنبيجيغا وتب علي توبتنا إيغا أقبل إنك أنت التواب الرحيم أديغا أياء متك توبة كان ددك توبين توبة متك كأقبل أون نحرست إله أديغا واي مركا دعوين كاستي كو فضود بعد استعماليسا لكن أراح هذا أديه ديتان قاعد زي كخلدمين أستغفر الله دين أستغفر الله دي أستغفر الله أفضل أن يكون الاستغفار قفك أستغفر الله دهايا وحاونا أكسن مركو أستغفر الله دهايا قرمه وحاونا أكسن حلي كان صوصعدا حلي ما هي قابك الوضع قابك استغفر الله هذا مع حضور القلب استغفر الله مركا ديس قلبي قاعد حاضر هذا قلبي جوقال الربا اسكو حر دنبي قاعد حسوسه وخلط كاد قشي حسوسه كشلي استغفر الله عرب كاغا إيا اللابتاد هاي سلا سعودين لكن هدي لبضوضا كلا سعودان أحبه فايدة ملا هانين اسكبو قات هاي حضور القلب أيال الربا قلبي قاعد إنه حاضر هذا الربا لكن قلب غائب وجسم حاضر لمربو لما أنت هذا جيرك هذا إيو قلبي هذا بإني وذا جوغان عرب هذه اللابتاد أما قلبي هذا سلا سعودان أيال الربا مع الندم على الذنب أذيقو ولي بكشا لينايا دنبيا دا أتقشي دنبيقو ماها موقتو حيالا أنقلني دنبيا بدن بانقلني إن لقشا ليا الربا مع العزم على عدم العودة وشروط التوبة كم يتهي أذا قوان أذا كجارة هيا إن هذا كل بنين مرضا بالدنبيا سوكلته قضب كصدحات مارتي أوسي قد بها أوقات الاستغفار واختيض أوهبون إن أستغفر الله هذا دائما استغفر الله إن أنا نقرمه أوهبون the best time for أستغفر الله ينهينا هرت أستغفر الله ومشروع في كل وقت والبو على ديكرا وقت هبلا أوغون لما ديكرو وقت والبو كفرنتا it is open go لكن هناك أوقات فاضلة لكن وحاجرة واختيال وناكسن أو فضل بدن أستغفر الله مر والبا يجار والبا يميل والبا وكل ديكرنا وحن مسخش كهين مسخش مركات كجرتت مايا لكن مر والبا يميل والبا يحل والبا أستغفر الله وكوبا نانتا إنا ترهدت لكن بالأخص قوني أهان وقتية في عم باجرته أو آدو فضل بدن تاي كو في السحر وقت السحور سحورت وقت جدي سقال ساعة 8 ساعة كوي توانكي حلقة سوكالتو قبل الفجر فجر كصلاة الصبح انتو سندلانين فجر كاس انتو سندلانين آذان كدن انت لا آذامين كار وقت قالي وأوي إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحكول هاي وبالأسحار هم يستغفرون مؤمنين تدأ بيقود أما رقم كود وحو يهي حلية السحورتا أي إلهي الدين بداف كعد صدان ولا لي الوحاسان لو يري النبي جين وحو نوشي عليه الصلاة والسلام ربنا جل جلاله إنو هبينك نسك الدنب أوسو دقاية هبين واتان داني سدح ميلودا نقيبني أفر ساعدود وسديد ساعة سديد ساعة بروحي كبلاوتا سديد ساعة وحي كبلاوتا إلا أواغا كبرنايا ربي سبحانه وتعالى وعرشه وكسو دقايا سمد النصوحك تو إيمانيا قعمه سفيدنايا يا دم بدافع قعد صدا أونو دم بدافع يا وحي قطوغو أونسيا إلهي ساسو دهايا مركز سيدا درادت وقتك سحورتا وقت قالي أواي مجر قف مؤمن أمين كان صوتوسو قعمها كور أتاغو أستغفر الله بذيا والله مراد كيسواه لايا شكك مجرتا أيضا وقت قالي أواي نبي الله يوسف عليه السلام الميس مركا دهدن أبو أنغا قردرنينه خلط كأنغا إسكالهين ولا كأنغا ظلمينه إلهي الدين بداف نوغا بري بيدهن مركاسا نبي الله يوسف وحيري سوف أستغفر لكم حدو أيان إلهي الدين بداف إدين ورسنا حدو ذا الشيء يا علماء وحيدهن وقتك السحور تأوال وبالأسحار هم يستغفرون هل وقت واها يستانوا مالينا أموك أيها وكاتب واجه كل الله كما ميمي بعد الصلوات الفريضة صلاة فرضك سنوين كبا مركات السلام عليكم أنت رادد با محنكو بلاونا
assalaamu calaykum maxaa ku xiga astaqfirullah 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 saddex jeer dhah u dhahay nabigeena sal alla alay slam saasuu dhahay markaad salaam naqsataan adkaarta salaada waxaa ka mid a bacda salaad adkaarta la akriyo saddex jeer inaad dhahdid waay bacda salaam markaad salaam naqsatid saddex jeer waa inaad dhahdaa astaqfirullah 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 war ilaahay amarkiis war annaga dembi maba gelina salaadaan tukanay astaqfirullah maxaa keenay camal kastoo wanaagsan waxaa wanaagsan dembi dhaaf in lagu khatimo khaladaad badan baa salaada dhexdeed kaa dhacaya annaga salaada markaan ku jiro waa iska sheekaysana soo maarkin waa la iska sheekaystaa qaar baa arrimaha soo xasuusanayaan oo waxyaalihii dhacay iyo wixii shalay iyo wixii xalay iyo wixii hadday markuu soo socda dhexdu ku arkay waxaanay maskaxda ku mashquuli ninkii shaydaan ahaabaa mashquulinaya maskaxdu dad ka galay baalka inkaaru qabaaye marka astaqfirullah idaan badinayna jamiil kaana nabiyu sal alla alay slam nabiga ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa sallama markuu ka salaam naqsado min asalaati salaada qaala wuxuu dhihi jiray astaqfirullah ilaah baan dembi dhaaf weydiisanayaa halaathan saddex jeer waktigoo waa ka isagaa waktiga labaad waa ka isagaa waktiga saddexaad bacda dembi mubaasharatan markuu dembi kaa dhaca allen malaa'ig ma nihin dembi baa naga dhacay maog tahay dembi markuu kaa dhacaba immediately astaqfirullahi dheh waxaa la yidhi labadan malag munkar iyo nakiir ayaa la dhahaa raqiib iyo catiid ayaa la dhahaa raqiib iyo catiid munkar iyo nakiir kuwa qabriga jooga raqiib iyo catiid raqiib garabka midigtuu saaran yahay xasanaadku qoraa kan kalena intuu fadhiyaayo maaragtay dembiga iyo xumaantuu qoraa marka qofka markuu wax wanaagsan suubiyo immediately waa la qori laakiin markuu dembi suubiya catiid ilaa 6 saacadood uu sugaa la yidhi qalinka intuu saadha waa suga astaqfirullah idaasu sugi hadduu astaqfirullah dha dheg waa loo qori marka waxaa la rabaa dembi hadduu kaa dhaca bani aadin aan nahay dembi waa naga dhacae astaqfirullah aan ka dabageyno astaqfirullah maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa deeqsi maxaad haddaa iigu caysis kuma dhahay dad ma ximiyo marka astaqfirullahida aan ku dadaalno insha allahu tacaala waa goorme xilliga dembiga aad soo bisid immediately dembiga ka soka dembiga markaad saa u aragtid allah khaladaan galay astaqfirullah astaqfirullah qof aad kud ikir aad dhahday astaqfirullah astaqfirullah waadna dembaajisee ay dhahayan dadka qaala nabiyu sal alla alay slam nabigu wuxuu yidhi kullu bani aadam ilmaha nabi aadam ilmihiisa idil khataa'un waa kuwa gef badan wa khayru lkhataa'iina kuwa waxaa u khayr badan dadka gefa dadka khaldama dembiga suubiya waxaa u khayr badan attawaabuun kuwa tawba keena soo ma arkaysid qof aan dembaabaynin ma laha qof malaa'ig maanta naguma jiro nabina ma nihin oo macsuum ma nihin marka nin aan dembi galaynin culimo iyo caamo dhalinyaro iyo waayeel bilcaan iyo rag ma jiro dembi waa galahaynaa dhammaanteen laakiin maxaana laga rabaa inaan mar walba tawba keenno mar walba inaan ilaahay dembi dhaaf aan wasano astaqfirullah aan badina ayaa la doonaya ceeb maaha yah waayahan dhalinyaro iyo odayaalba tusbaxaa la wada qaatay marka tusbaxaan horta asal ahaantiisa tusbaxa diinta ka mid ma aha laakiin waa waxa un xisaabta lagu hagaajisanayo culimada islaamka marka waa un ma artay qaar baa iska ogol marka bal haddaad qaadato status yuusan kaa noqonine qalbigaada iyo farahaada ha isla socdeen laakiin haddii faraha un iska dhadhaqaaqayaan adigana aad maaragtay wax kale ka sheekaysid ama wax kale ka fikiraysid isma keenayso qodobka afaraad waktiga afraad oo wanaagsan in bani aadinka dembi dhaaf ilaahay weydiistaan fi khitaami almajaalis mitimada la isugu imaado fadhiyada la isugu imaado ninka iyo naagtiisa xataa hadday isu imaadaan ay sheekaystaan ay kala tegi rabaan amaba maaragtay mitin reer isugu imaado ama family ahaan ama magaalo ahaan ama shir weyn la isugu imaado xataa markii la khatimo shirka la xiro our meeting has been closed markii la yidhaahdo waa inaad tidhaahdaa subxaanaka allahuma wabixamdika astaqfiruka wa atuubu ilayk ducdaas waa muhim fadhiga hadda aan fadhino markaan soo khatimayno waa inaan sidaa ku khatimna subxaanaka allahuma wabixamdika subxaanaka allow adigaa hufan allahuma ilaahayow wabixamdika mahaddaada ayaa ku dheehan astaqfiruka ilaahu dembi dhaafaan ku weydiisana wa atuubu ilayka xaggaadan usoo laabana fadhiyada taasaa lagu annaga tan waa naga maqan tahay annagoo ku dikirisle aan kacaynaa annagoo iska buuqaynaan kala tegaynaa fadhiga marka hore markii hadalka la bilaabayo bismi llah alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuulillahi lama dhahayo waanainji watukufu un baan ku bilaabaynaa un
dadweynaha isu imaaday ayaan ku bilaabayna war muslinaa tahay bismillahi ku bilaaw ilaahayna ku mahadi bismillah alxamdu lilah wathanaa'u lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaahay amaan rasuulkana ku salli markaa kadib sheekada gal sheekada waa barakoobi markaas waktiga shanaad oo aad u wanaagsan waa waktiga qofka xajka iyo cumrada joogo waa wakti aad muhiim ah runtii meeshaas waxaa la yidhi dembiga lagu soo dhaqaa marka iska soo dhaq dembiga meesha ilaahay waatuu yidhi huma afiidu min xaysu afaada annaas meeshay dadka mareen oy u yaaceen u yaac baa la yidhi wastakfiru allah ilaahayna dembi dhaaf weydiista xaramkaa la joogaa ilaahayna dembi dhaaf weydiista la yidhi intaa waa istikfaartii iyo macnaheedii iyo wixii la halmaalay waa kuwaasa hadda waxaan gelaynaa maxaa qiso oo ad ka haysaa sheekhow oo istakfirullah inay faa'iido leedahay faa'iidooyinkeeda wax hadda ka hor la arka ma jirta adeerow banadhol haddii la laqa madax xanuun in laga caafimaadayo soo qof walba ma garanayo haa istakfirullahina waa saas oo kale saasaa loo aaminsan yahay qalbigaada haddaad aaminsaneen adiga way laakiin astakfirullah haddaad daa'imtid lacagtan waa ku badanay xoolaha way ku badan doonaan maalin maalmaha ka mid a nin la yidhaahdo nin ayaa u imaaday sheekha la dhihi jiray sheekh xasan albasri raximahullah xasan albasri ayuu u imaaday nin yashku lfaqra faqiirnimuu ka sheeqanaya sheekhow dhowaan aan faqiirnimo ay hays shilmaad ma haysti ilmaha waxaan wax u gataan waaye calaacal iyo buuq meeshaanu galay ninka meeshaan ahay markaasaa xasan albasri wuxuu u malaynayay inuu u sheegaya meesha saan khiyaana saan suubi waxaa saasaad lacag ku helaysa maba dhihine wuxuu dhahay astakfir allah ilahay dembi dhaaf weydiisu yidhi faqaala istakfir allah astakfirta banta ku dadaal buu yidhi wa jaa aakharu nin kale ayaa haddana u imaaday yashku qilat alwalad ilma ma qabi ilma cunugo bisaan qaba ilma la-aanan ahay ilmaan u baahanahay faqaala wuxuu yidhi istakfir allah ilahay dembi dhaaf weydiiso wa jaa thaalithu nin saddexaada u imaada haddana yashku asagana wuxuu ka cabaada can iljadbi abaaraa jirto dhulka abaaraa jirtu dhaya abaarana xoolihii waa naga baabaayaan faqaala wuxuu yidhi xasan albasri istakfir allah ilahay dembi dhaaf weydiiso istakfir illah yani istakfir illah saddexda muxuu ku dhahay istakfir illah midkan muxuu yidhi ani waxay haysatuu yidhi horta faqiirnimo ay hays istakfir illah anigana maxaartay ilma yari ay hays istakfir illah anigana xoolihii iyo maartay dhulkii abaar ayaa na saamaysay istakfir illah fasu'ila can dalika imaamu alxasan albasri mufasir weyn uu ahaaye waa la weydiiyey arrintii baa la weydiiyey faqrigaa laga weydiiyey faqriga istikfaartu ku xiran yuu yidhi haddii qofka istikfaarta uu ku dadaalo faqri waa ka baxa buu yidhi waxaa u daliil ah ilaahay wuxuu yidhi aayaddii haddaaye yumdidukum biamwaalin wa baniina waxaa laydin kordhinaa laydin badina maalkiina iyo ilmahaba waa laydin badina ninkii ilmo rabow astakfirullahi ku dadaal yaan la isfurin ilmaha ilaahaba abuuro walaalahayga muslimiinta waxaan leeyahay khaasatan dadka ilmo isu dhali waayey labadiina fariista habeenkii markay dadka hurdayaan istakfirullahi ku dadaal kumanaan akri dhowrkoo habeen iyo bisho iyo waxdaad yeeshaan cajaa'ib waa arki doontaan in sha allahu tacaala fa kaana alistikfaaru marka meesha waxaan ka qaadan istikfaar waxay noqotay cilaajan daawo likulli mishkila istakfirullahi waa daawo mishkilo kasta ayadaa daaweynaysa haddii islaanta iyo ninka ay maaratay hurguf ay u dhexayso heshiin la yihiin intii laisfuri lahaa bal qof walba gooni ha u fadhiistee istikfaarta ha lagu dadaalo gurigaas waa ilaahay baa islaaxinaya gurigaas waa hagaaga waa toosa shaki ma laha ilahay hanugu hanuuniye arrintaas waa maarata arrin loo baahan yahay qiso labaad oo khatar ayaa jirta iyadana nin ayaa jiri jiraa la yidhi aad murugo iyo walbahaar u hayo walbahaar baa ka batay murugaa ka badatay fa akhara wuxuu badiyey ninkii min qawli astakfiru allah wa atuubu ilayh intaanuu badiyey astakfiru llah wa atuubu ilayh astakfiru llah wa atuubu ilayh astakfiru llah wa atuubu ilayh tanuu badiyey shaqo ka dhigtay fafaraja allahu hamah walbahaarkiisa ilaah baa feeday wa fataxa lahu abwaaba arisq albaabada arsaaqdana ilaah baa u furay intaas mu sooma rabna annaga inuu ilaahay murug stress la-aan uu ku nooleeyo qaylo la-aan maxaa la yidhi waa la naaxaa soo maa stress la-aan waa la naaxaa stress inuu ilaahay kaa qaado ma rabtaa arsaaqda inuu ilaahay ku waasiciyo ma rabtaa astakfiru llahi wa atuubu ilayh ku dadaal astakfiru llaha wa atuubu ilayh astakfiru llaha wa atuubu ilayh aan ku dadaalna taas ayadee qiso saddexaad ayaa iyadana tan ah
maxay leedahay qisadan saddexaad waxay leedahay imra'atun haweeney ayaa ta'akhara canhaa xamlaha haweeney ayaa nin guursaday uur bay qaadi weysay uur baa ka soo dahay yani ma uuraysanin muddo fog waa la isqabay sanado dhowr sano yay uur la-aan iska hayd oo ilmo la-aan iska hayd haweenaydii markaa qof bay u tagtay way warsatay waxaa la yidhi istakfirta daa'im astakfirullahi daa'im ka dhig baa lagu yidhi dhakhtarkii hebel ahay gynecology ahay kaasaa fiican tii hebelaaya nairobi hospital joogtay tii aga kaan joogtay u tag lama dhihin waxaa la yidhi astakfirullah wa atuubu ilayhi daa'im baa la yidhi falazimat اlistigfaara astakfirullahidii bay laazim iskaga dhigtay oo daa'im ka dhigatay qadii quraaci cashay waday famaa madaa mayna teginba waqtun muddo dheer ayadooba muddo dheer dhaafin dhowrka wiig iyo bisho iyo 2 bilood iyo 3 bilood la maraaye waaba tana ilaa warazaqaha allahu waladan waa tana ayadoo mataqays khalaas waxay rabtay ilaah waa siiyey soo maa astakfirullahi marka in lagu dadaalo waa shay muhiim ah gabdhaha walaalahayga ah uurka qaadi waaye ma dhashi ninkeed waa is eedaana la dhehee waxaas kulli waxaa dhaqso bixinaya astakfirullah laakiin astakfirullah yaa laga aqbala horta qof xalaal cunay waaye calooshaada xaaraan hadday ku jirto gurigaada xaaraan hadduu yahay dharkaada xaaraan hadduu yahay astakfirullahda waxba kuma tarayso inaad ka tawba keentidood ka laabatido dulmigaas iska celisido xalaasha aad u go'did ma ahane war arsaaqda aan iska hagaajino astakfirullah ilahay waa naga aqbali doonaa naagtii iyadayd sidii bay ilmo ku heshay waxyaalaha raadka ama calaamooyinka astakfirullahda in laga aqbalay iyo in kale noloshaada ayay saamaynaysaa saamaynta ay ku yeelanayso astakfirullahi noloshaada dhexdeeda maxaa ka mid maxaa saamayn ay ku yeelan kartaa kow horta yudahiru alqalb astakfirullahi dadku ku dadaal qalbigooday nadiifinaysaa cuqdud ma qaado xasnimo ma gasho qalbigooda nadiif waaye marka qalbigaada hadduu inuu keliil noqdo aad rabtid astakfirullahi da yashraxu sadr stress iyo waxba ma qabo qof iska qalbi furan waayo qalbigiisu waa iska furan yahay xabadkiisu waa furan yahay xaqdi kuma jiro xasnimo kuma jirto cuqdad kuma jirto free from all that yajlibu sakina waa qof iska xasiloon iska degan iska qaboban waayo holac ma qabo argagax ma qabo gaajo iyo rafaad ma sheegto qofka waa qof degan oo ladan xasilooni buu ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala yuqaribu alcabda min allah astakfirullahi waxyaalaha ay adduunkan kuu siinayso ilahay bay kuu dhaweynaysaa ilahay subxaanahu wa tacaala dadka aad u tooba keenuu jecel yahay waa tii xadiidkii maartay dheeraan kusoo arooray qof maartay harraadsan oo rafaaday meel bannaan ah ritigii uu dhumay goor meesha isquursaday oo meel hoos isku tuuray ritigiis imaaday soo kor istaagay hoggaanka qabtay ilaahu addoonkayga maartay anaa maartay rabbigaada adigana addoonkayga tahay farxad daraadeed u dhahalay marka ilaahay aad lallahu ashaddu farxan bitawbati cabdi ilaahay baa aad ugu farxad badan addoonkiisa markuu tawba keenay walaalayaal ilaahay tawba keenku nagu jeclaana aan ilaahay u tawba keenno oo dembi dhaafka aan ilaahay weydiisano mar walba ilaahay aan ku xirnaano marka addoonka ilaahay buu u dhowaanayaa intuuba astakfirullah uu leeyahay ilah buu u dhowaanaya subxaanahu wa tacaala yarfacu darajaat darajooyina ilahay kor u qaada yani atakuwa wati ya mungu kumcha mungu qof ilaahay caabuda oo ilaahay jecel yahay darajadiis kor loo qaaday buu noqona qofka isaga ah ya mar walba scale iyo maartay grade loogu dara grade loogu dari waxaan hadda jabjab group aad ku haysaan wax iska fudud ilaahay agtiisa laakiin grade weyn lagu siinaa grade weyn oo jannada maartay firdawso lagu galay ayuu ilaahay dad siinaa subxaanahu wa tacaala kadalika qaala bacdu salaf culimada qaar waxay dhaheen dadkii naga horreeyey akhyaartii wanaagsaneed waxay dhaheen cajabtu waan la yaabay bay dhaheen liman yahlik qof iska halaagsamaya qof ishalaagayo oo halaagsamaya ayaan la yaabnay dhaheen wa macahu listigfaar asagoo heli kara astakfirullah inuu dhaha halaag maxaa kugu ridi istakfirullahi baad dhihi kartaa ya in dembi kasta haddaad gasho astakfirullahi baa ka maartay yaa ka adag yaa tooba keeni astakfirullahi aad ku dadaali soomaaliya maxay dhaheen kun qasli waxaa la yidhi qulucdo ayaa dhaqaysa kun qasli ubudo ayaa lagu dhaqaa kun dembi haddaad geshid astakfirullahi haddaadido tooba keentid khalaas ilahay waa kaa dhaqa subxaanahu wa tacaala attaa'ibu waxaa la yidhi kaman laa danba lah qofka tawba keena wuxuu la toon noqonaa daacad u tawba keena ikhlaas ay ka tahay qof aan weligiisaba dembi gelin oo kale laga dhigi kelin waa la mayri hal mara la dhaqi kelinna laga dhigi allahu akbar walaalayaal addoomaha ilaahayow kam min dhanbin athqala dahrak meeqaa dembi dhabarkeenna maanta cuslaysa
meeqaa dembi aan subinayna maanta culays nagu haya tunki iyo dhabarka naga jebinaya culayskood wa kam min hammin arhaqa qalbak meeqaa muruga ah walbahaar ah stress qalbigaada maartay dhibaato u geysanaya qaar waxaa leeyahay stress ay ugu dhacayo maartay maskaxda ayaa ka halawdayo qaar guryahay ku laabteene qaar shaqaday ka carareene qaar maartay tacliintii ay ka carareene stress aan ahay leeyihiin darooga isku gurayaan inkaar ilaahay kuguma ride war darooga stress kaama dhuminayso dembi unbay kuu kordhini dullinimay kuu kordhini dadnimadaada ay dilaysaa astaqfirullahi usan xusuusnaaw astaqfirullah walaalkayga muslimku ahu dembiga saas ayaa loo horeeyaa baabullahi maftuux albaabka ilaahay waa noo wada furan yahay ilaahay albaabkiisa lama xiro ilaa qoraxda ay inta ka soo baxdo qoraxdan hadda ka soo baxayso maartay bari ilaa ay galbeed ka soo baxdo ama west ay ka soo baxdo ilaahay albaabkiisa waa furnaanaya walaalyaalow ilaahay aan u tawba keenno walaalyaalow astaqfirullahi aan ku dadaalno war dunuubteenna waa badan tahay war khaladaadkeenna waa badan yahay war dhacdhaceenna waa badan yahay ilaahay aan ka cabsanno oo rabbi aan ka cabsanno oo dulunka iyo dembiga aan ku jirno aan ka soo laabanno walaalayaal astaqfirullaha waxaad dhahdaa astaqfirullahi mar walba ku hay bisidqin adoo ka run sheegaya wasatara alcajab cajaa'ib baad arkaysaa ijcal lisaanaka ratban bilistigfaar carabkaaga ha ahaada mid daa'iman ka qoyan astaqfirullah intaad bani aadin xaman lahayd intaad fadhi ku dirir waqti ku dhumin lahayd intaad dad aflagaadayn lahayd intaad sheeka baraley aad wadi lahayd intaad siyaasa ka sheekayn lahayd carabkaada daa'iman ha ka qoynaado astaqfirullah war carabka aan laylino kan ayaa lagu halaagsami kan ayaa naarta dadka ku shuba nabigu wuxuu yidhi laba shay ayaa bani aadinka naarta weji ugu rida laba shay ayaa sabab u ah bani aadinka inay naarta weji u galaan laba shay ayaa sabab u ah wuxuu yidhi alfamu afka iyo walfarju farjiga ibta taranka maaragta waa labada ugu khatarsan xibinta ilahay nagu abuuray walaalkay muslimka ahu astaqfirullahi carabkeenna aan barno carabkeenna daa'iman aan ku laylino adoo socda astaqfirullahi maxay kaa dhibi waaba socotaaba rabbigaada ku xirnaaw samada fiiri dhulka ballarkiisa fiiri dhinacyada maartay daruuraha socda fiiri khalqiga bani aadamka kala duwan fiiri astaqfirullahi afka ku hay waa socota shaqadaad u socota gaari baad wadaa astaqfirullahi gacan uma baahna carabka ka dheh halla xisaabiyaa ku dhahday horta maxaad u xisaabi ood ka rabtaa boqolka galabti iyo boqolka subaxi maani maxaad u xisaabi wad daldal intaad shaqadaada iyo xafiiskaadaad ka gelaysid gaariga steeringa labada gacmood ku qabso astaqfirullahi dabadi wallahi accident xataa ma gelaysid xaaran bay ka tahay ilaah baa ku ilaalinaya adoo shaqaynaya oo maartay combyuterka qoraaya astaqfirullahi waa dhihi karta adoo maartay qof duraaya ama maartay dhakhtar ee dad daaweynaya astaqfirullahi waa dhihi karta intaad qof la hadlaysid hadal intii kalena astaqfirullahi hadalkaada ka dhigo intaad hurdin ka hor markaad soo kacda kadib qof hurdaya astaqfirullahi ma dhahay mogtahay intaad hurdin ka hor astaqfirullahi ku seexo markaad soo kacaysidna astaqfirullahi ku soo kac fa inaha kanzun cadiim waa kayd aad iyo aad u weyn laa yuqadarahu ila man jarabah qof maarta qiyaasi kara ma jiro kanzigaas amaba kaydka isaga ah ilaa qof soo jarribeeyey ma ahane qof soo jarribeeyey hadda ka horta jibriilada soo suubiyey kaa unbaa maartay yaa la warsan karaa wuxuu yahay ma aragtay istikfaarta waxay tahay ninkaas unbaa la warsan karaa marka walaalkayga muslimka ahow waxaana looga baahan yahay dhammaanteenna nafteenna inaan weydiinna waay mar walba astaqfirullah ayaan leenahe maxaa dhacay ya daaqat fihi dembiyada waa naga bateen xabadka ciriiri buuna noqday deemaha waa naga bixi waayeen barakada ma helahayno barakadii waana laga xiray maxaa jira aan isweydiino maxaan ku daawaynaynaa tii haddaan ku daawaynayna astaqfirullahi baan ku daawaynaynaa astaqfirullah roob ma rabtaa istigfaar arsaaq ma rabtaa istigfaar ilmo wanaagsan ma rabtaa istigfaar baraka ma rabtaa istigfaar istigfaarta inaan ku dadaalnaa loo baahan yahay qof walba oo dembi cusleeyayo ruuxa adduunka ciriiri ku noqdayo wax kale ha raadinin calayka bilistigfaar astaqfirullahi aan badinno walaalayaal astaqfirullahi aan badinno astaqfirullah aan badinno imaamu axmed binu xambal waa la wada yaqaanaa yaa asagoo safar ku jiro
qiso la yaab leh waay qisadan ayadana. asagoo safar ku jiro socdaal ah yuu magaalo soo galay. magaaladii markuu imaaday haddee waa nin marti ah, meeluu seexda ma garanaya. masaajidkii laga aadaamay buu tagay, waa tukaday. masaajidkii waa cishaa la tukaday, waa la kala yaacay. mu'adinkii baa ku soo haray iyo isaga. markuu ku soo haray mu'adinku wuxuu yidhi waryaah maxaa tahay, ka bax buu yidhi masaajid ka bax. culimadii horena aniga sheekhii weynaa hebel aan ahay ma garanaysido ma dhihi jirin. ya ni annaga xoogaho magacaadaba sheekh haddii la dhah sheekh aniga sheekh hebel waay mogta u dhihi qofka. sheekhnimadaaba dadka lagu baartaa, noocaas looma baahne. marka axmed bin xambal muuna dhihin ani sheekh axmed baan ahay iyo ninkaasaan ahay ismuuna dhihine. ninkii masaajidkaanaan seexan rabaa buu yidhi, oo axmed moogtahay. wuxuu yidhi masaajidkan ma seexanayside baxuu yidhi banaanku usoo saaray. mu'adinka isagana ku kalu ahay. fa jalasa cinda albaab, albaabkii markii laga soo xirtay oo ninkiina iska galbaday, axmed bin xambal albaabkii jardiinkuu fadhiistay. smiidkiibuu isaga fadhiistay asagoo meesha fadhiya, astakfirullah adkaartiis iska wato, murugna kolley ay hayso. famara khabaazun nin maartay rooti kariya, nin burka kariya oo bakari waxaan ka shaqeeya ayaa soo maray. fa qaala lahu wuxuu ku yidhi maxaad intuu fadhisaa? masaajidkaan seexan rabe, meel aan seexdaan waaye, masaajidkiina waa la iga soo xirtay buu yidhi. tacaal cindii buu yidhi, ani isoo raac buu yidhi, maarta anaa ku siinaya meel aad seexato. markaasaa way soo raaceen. meeshuu ninkan rootiga ku karinayey yaa la keenay axmed bin xambal. falamaa jalasa cinda, markuu agtiisa fadhiistay, axmed bin xambal waa marti moogtahay. marti waxaa la yidhi fadhi muumin waa leedahay, fiiri muumin waafiqna waad leedahay la yidhi. ya marka wuu mulaaxadeeyey ama waxyaalou fiiriyey. imaam axmed bin xambal wuxuu arkay ninkii khabaaska ahaa amaba maartay bakari ka shaqaynaya, rootigii karinaya, laa yatawaqafu can qawlin, marna ma istaajinaya astakfirullah astakfirullah, maba istaajinayaba. rootigu xashaa, rootigu dabka gelina, tanuurku gacanta gelina, astakfirullahi ku haya intaas. ninkan waa yaabay. axmed bin xambal waa nin wadaada, waa fiirina ninkan, waa la yaaban yahay. fa qaala wuxuu yidhi axmed bin xambal, ninkiibuu ku dhahay hal wajadta atharan lidalika, astakfirtan faraha badan adi aad wadid wax raad ah, saamayn ah, noloshaada ma ku yeelatay buu yidhi, faa'iido ma ku heshay? waa tan astakfirullah astakfirullah astakfir aad ku haysee, maxaa faa'iidood ku heshay buu yidhi hadda ka hor? wax faa'iide ma ku heshay? qaala wuxuu yidhi ninkii nacam, faa'iido badanaan ku helay buu yidhi. maxaa ka mid ah buu yidhi faa'iidada aad ku heshay? wallaahi baan kuugu dhaaranayaa buu yidhi, maa dacawtu dacwa, alla bari ma subiyuu yidhi, ilaahay ma baryo baryo ma subiyuu yidhi, ila istajaabaha allah, ilaa isla markii ilaahay waa iga aqbalaya. ilaa dacwatun waaxid, hal alla bari oo maaragtay laga aqbali waayey ma ahane, inta kale kulli markaan ilaahay u dhahaba hoobaa li dhihi jiray buu yidhi. taana waxaan ku helay fadliga istikfaartaan ku helay buu yidhi. cajiib. waa maxay buu yidhi middan aad maaragtay codsatay oon laga aqbalin? qaala wuxuu yidhi an araa alimaama axmed, inaan markoo la kulmoon arko imaam axmed binu xambal ayaan ilaahay ka baryey buu yidhi. tii baan weli helin buu yidhi. ninka saa loola hadlayan waa axmed binu xambal. fa qaala alimaamu axmed wahuwa yabki, axmed bin xambal waa ooyey asagoo ooynaaya. wuxuu yidhi ana axmed buu yidhi, axmedka adiga aad ilaahay ka barisay inuu ku imaado ama aad aragtid waa ani buu yidhi. horta allahu akbar, wallaahi baan ku dhaaranayaa, jaraka allaahu ilaya jaran, ilaahay baa iga kaa soo jiiday buu yidhi. ilaahay baa ii kaa keenay buu yidhi. maanta waa kana baryadaad in la aqbalay. maarata arrin la yaab le waay. ayna naxnu min alistikfaar, war annaga halkeen ka taagannahay? kalsoonida dadkaas ay qabeen bal fiiri. annaga maanta astakfirullah inteen ka taagannahay ma ku camal falnaa? carabkeenna ma barnaa? saacadaana dhaafa, maalmaana dhaafa, bilooyin ayaana dhaafa, sanad ayaa sidaa nugu dhaafa annagoon dhehin weli astakfirullahi annagoona dhihin. wax yar iyo wax badanba astakfirullah inaan ku dadaalna ayaa loo baahan yahay. waa sunno nabi calayhi salaatu wasalaam. nabigeenna waa tii hadday aan soo sheegnay. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana dembigiisa hore iyo kan dambe waa dhaafay. dadaalkaas ayaana laga rabaa, inaan dadaalna ayaa la rabaa. nabigeenna wuxuu yidhi adnaba cabdun danban, qof ayaa dembaabay buu yidhi,
addoon ayaa dembaabay dembi faqaala wuxuu yidhi rabbi ikfir lii ilaahu ii dhaaf buu yidhi faqaala allahu ilaahay wuxuu ku yidhi calima cabdii addoonkaygu wuxuu ogaaday anna lahu inuu qabo rabban rabbi oo yakfiru danba astakfirullah markaan dhahayno waxaan ognahay oon kalsooni ku qabnaa yaqiin aan u qabnaa alla dembi dhaafaaya inaan qabno faqad gafartu licabdii addoonkayga dembigiisu aan u dhaafay buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala humma caada ninkii haddana dembigii ku noqday fastakfara fagafara allahu lahu haddana waa u dhaafay humma caada dembigiiu ninkii ku laabtay maartay fastakfara haddana ilaahay u dembi dhaaf ka codsaday fagafara lahu ilaahay waa u dhaafay marka dembigan aad ku noqonaysid adiga istikfaarta ha ka daalin dembigaas maba kugu istaagaya maadaama yastakfiru wayatuubu bisidqin intuu qofka si run ah daacadnimo astakfirullahi uu u leeyahay ilaahay uu tooba keenaaya marna qofka isagaa dembigiisa ma hakanayo oo waa loo dhaafaya isla markiiba war niman yaho walaalahayga muslimiinta ahow rag iyo dumarba yaanan dhihin annaga qalbigaada yaysan soo gelin dunuubi kathiira allah ana dembiyadaydu waa badan yihiin ilaahay ma waxaasu ii dhaafi kara ha dhihin maya laa taqul laa yugfaru lii ani horta waxaan subinaan arkee dembiga maba la ii dhaafa ha dhihin adiga dembi dhaaf la imaw dembi dhaaf la imaw astakfirullah ku dadaal warjic ilaa rabbika rabbigaad u soo laabo ilaahay u soo laabo ilaahay asagaa gafuurun raxiim eh ilaahay asagaa gafuurun raxiim eh bani aadin kale ee kuuma soo maro qisadan ayaan ugu dambaysinaya insha allahu tacaala nin dhalinyaro ayaa jiri jiray baa la yidhi yaciishu fi hammin shadiid wadayqin wa karbin dhibaato iyo murug iyo walbahaar iyo stress iyo nin dhalinyaro ku noolaa oday buu u imaaday oo maarata nin culimo u imaaday waa waraystay waa u sheegay fa nusixa waxaa lagu waaniyey bilistikfaar istakfirullah hada ku daa'im baa layidhi istikfaarta daa'im baa layidhi fajacala linafsihi wuxuu suubsaday time table wardan yawmiyan daily time table ayuu suubsaday yani kutoka saa fulani baka saa fulani astakfirullahi waa shaqadayduu dhahay wallahi wuxuu yidhi ninkii wiilkiiya dhaarana wallahi baan ku dhaaranaya bacda ayaamin qaliila maalmo kooban kadib maalmo yar kadib shacartu waxaan dareemay buu yidhi raaxaan dareemay buu yidhi stresskii waa baaba'ay buu yidhi lam ashcur biha min qablu raaxadaasoon hadda ka hor weligay aan dareemin bimacnaa stresskiyaa laga qaaday uma bada'at waxayba bilaabatay buu yidhi waxaa ii bilowday buu yidhi mashaakilii mishkiladii iyo shidooyinkii igu xirxirnaa tanxallu inay furfurmayso waaxidatan tilwa alukhra hal kale ka dambayso xabad mashkiladeydoo idil mashaakilkii ihaye rafaadkii iyo walbahaarkii murugtii iyo stresskii hal ayay u furmeen buu yidhi xataa tagayarat xayaatii bilkaamil ilaa noloshayda kaamilkeedaba isbedesho oo qof caadi aan noqdo walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa naftaydii iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa naftaada u subi barnaamij istakfirullahi ku saabsan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray bacda alfajr adkaaru sabax waxaa ku jira 100 jeer astakfirullah dheh 100 jeer waa 5 minutes 100 jeer waa inta laga aadaama bes astaqfirullah aw atuubu ilayhi haddaad rabto ku dar astaqfirullah alcadiim wa atuubu ilayhi haddaad rabto dhe waxaad ku maca adigu ku dardarso astaqfirullah laakiin aroortii hore markii salaada laga baxo astaqfirullah 100 gaarsii bacda almaqribna 100 gaarsii haddaad ka sii badisidna waqtiyaalka kale ood socotid ood fadhisid ood jiiftidna kaaga sii fiican sii badi astaqfirullah wa atuubu ilayhi dheh taas ayaa qalb wax kuu taraysa codkaada ma aragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala la xidhiiri dembiyaalkeenna waa badan yihiin dembiga aan bani aadinka ka galnay ayaaba badan kan ilaahay aan kasii galayna waa kasii badan yahay murugteenna ayaa badan dano badan ayaan leenahay waxaa kulli waxaan ku gaari karnaa danaheenna maarata jawaabo aan ku heli karnaa inaan istikfaarta aan daa'imno allahuma اغfir lana dunuubana kulaha diqaha wajillaha awaluha waakhiruha اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار اللهم فرج هم المهمومين واقض ديوننا واشف مرضانا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم أصلح شباب المسلمين وبناتهم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.